duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteeko warbaahinta kula hadlayay xarunta dawladda hoose caasimadda Hargeysa markuu soo gabagabay shirka toddobaadlaha ee u dhaxeeya maamulka dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimo waaxeedyada ayaa waxa uu ka hadlay u diyaar garowga munaasabadda 18 May iyo olole nadaafadeed oo maalmihii ugu dambeeyay ay waday dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo ololaha lagu xareynayo xoolaha lagu dhaqdo caasimadda Hargeysa ugu horeeyna waxa uu maayirku ka hadlay qodobadii ka soo baxay shirkaasi mas'uuliyiinta dawladda hoose waxyaabaha aanu isla qaadanay waxa ka in dib loo xoojiyo dibna loo dhaqaajiyo ololihii nadaafadda kaasoo socon doona oo shirkadaha iyo dawladda hoose iska gacan kaashan doonaan in munaasabadii ay dhimay oo inagu soo fool leh dhammaan shacbigu sida ay uga qayb qaataan qof walibana aqalkiisa iyo nadiifiyo calankiina ka taago iyadoo lagu qaban doono munaasabadda xilligeedii 18 May su'aalo badan bay dadku soo weydiinayaan su'aalaha waxa weeye bishan waxa la qabanayaa waqtigeedii caadiga ahaa maalintii 18 May iyadoo ka badana 12 ka badana ku beegmasayaan filayaan in la wacyi geliyo ummadda laguna wacyi geliyo xeerka baarlamaanku ansixiyay guutida soo maray madaxweynuhuna saxeexay ee xeerka maareynta qashinka iyo fayadhowrka magaalooyinka xareyntii xoolaha in la sii xoojiyo degmo kasta iyo waaxda arrimaha bulshada u qaabilsanaa ay ka shaqeysa hawsha qofkii xoolaha magaalada iskaga soo daayana isaga ay u dhibaato tahay khaasatan geed iyo loo yaadhiba waa guud ahaan cid kasta loogu dul qaadan maayo saddexda nooc mid uu yahayba Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.